qodobada ugu waaweyn barnaamijkeena waxaa ka mid ah ciidanka Iran ayaa maanta ku soo bandhigay bartamaha magaalada Tehran caasimadda dalka Iran gantaal halis badan oo loo yaqaano Zulfaqir ballistic missiles waa bartamaha magaalada Tehran kumanaan kun oo shacabka reer Iran ah taagan halkaas arrin yaab leh halkaa ka dhacday ayaanu barnaamijka idinku haynaa iyadoo muuqaal ah qodobada soo kale aanu barnaamijka idinku haynaa iyana waxaa ka mid ah Israa'iil yuhuudda xag jirka ayaa maanta oo jimcaha gudaha u galay Masjid al-Aqsa 4000 oo yuhuud xag jira ayaa masaajidkii qaybta ay ku dukanayeen muslimiinta maanta fawdo iyo burbur weyn u gaarsiiyay waxaan ku hayaa xaaladda Masjid al-Aqsa iyo ma arrimo yaab leh oo ku soo kordhay masaajidka iyo carab weyn oo ka dhalatay sida masaajidka iyo dadkii halkaa ku dukanayay loola dhaqmay maanta qodobada soo kale aanu barnaamijka idinku haynay iyana waxaa ka mid ah warbaahinta Iran ayaa soo bandhigtay xitaa reer miyiga Iran ay leeyihiin iska daa ciidanka Iran iska daa militarigeena xitaa reer miyigeena waxay diyaar u yihiin dagaalka inay galaan muuqaal yaab leh aad moodaba dadka inay daange iyo raashin cunaa saxankii oo hub la dhigto hubkii rasaastii saxamada la dul saartay muuqaal la yaab leh oo si weyn baraha bulshada u waraagaya ayaanu barnaamijka ku eegi doonaa qodobka ugu dambeeyana waxaan idinku hayaa sheeko xiisa badan wasiirka arrimaha dibadda dalka Iran Abbas Araghchi oo ka qayb galaya shirka Shanghai Cooperation ayaa waxa uu gaaray dalka Kazakhstan oo uu ka dhacay shirkaas laakiin diyaaradda uu ku safray ayaa waxay ahayd diyaarad fariin weyn xambaarsan haddaba maxay ahayd fariinta iyo magaca diyaaradda loo bixiyay qodobada iyo kuwa kale ayaan idinku hayaa barnaamijka halkana waa kow Somali Media isbuucii labaad ayuu sii galayaa dagaalka Iran iyo Mareykanka tani intii uu Mareykanka soo rogaal celiyay dagaalku Iran uu ku wado laakiin xalay iyo maanta waxay ahayd waqti ku adag ay leeyihiin wararka ka imanaya bariga dhexe ciidamada Mareykanka Iran waxa ay qaaday weerar ballaaran oo ay ku beegsatay saldhigyada Mareykanka uu ku leeyahay bariga dhexe dalalka ugu daran oo ilaa iyo hadda duqeynta ay ku socoto waa Kuwait, Bahrain iyo Jordan iyadoo Imaaraadka iyo Qatarna ay sheegeen in ay qabteen drones laga soo tuuray dhinaca Iran marka waa mashquul bariga dhexe diyaaradihii rayidka ayaa duulimaadyadooda hakiyay aaday dhinaca bariga dhexe si kastaba haatee ciidamada dalka Iran waxay bartamaha magaalada Tehran ee caasimadda dalkaasi ay ku soo bandhigeen gantaal khatara oo gaarigiisii saaran bartamaha magaalada caasimadda dalkaasi gantaalkan ayaa loo yaqaanaa Zulfaqir ballistic missiles sababta gantaalkaas ay u soo bandhigeen ayaa lagu sheegay in ay tahay kumanaan kun oo dadka reer Iran ayaa iskugu soo baxay bartamaha caasimadda dalka si ay taageero ugu muujiyaan militarigooda ciidamadooda oo dawladaha qaar gaar ahaan ciidamada ilaalada kacaanka dalka Iran oo dawladaha qaar ay ku dareen liiska argixisada oo ay ka mid tahay Britain, Mareykanka, Jarmalka iyo wadamo kale laakiin shacabka Iran waxay leeyihiin haday militarigeena argixisayeen anagana argixisana ciidamadii marka si shacabka ay niyadda ugu dhisaan waxa la leeyahay macnaha nimanka duqeyna ku socoto Mareykanku wuxuu leeyahay Iran meel kasta waan beegsanaynaa nimankan hatta gantaaladu had banaanka soo dhigeenba macnaha gantaal weyninkiisa oo la leeyahay waa mid ka mid ah gantaalada ugu khatarta badan ee Iran isticmaasho ay banaanka keensadeen waxa la arkayay dhuunta madaxyada gantaalka oo gaari weyn lagu wado Iran waxay ugu talagaleen ayaa leeyahay gantaaladooda waxay sameysteen gawaari mobile ayaa loo si mobile ma aha mobilka caadiga la isticmaalo mobile waxa la wax kasta oo la wareejin karo oo la qaadi karo hadii qofka ganacsigiisa uu mobile ku xalisan karo ama online ku sameeysan karo waa mobile baabuur gantaalo mobile isticmaalayeen mesela Mareykanka way ku adkaanaysaa baa la leeyahay in hubka Iran uu wada burburiyo sababta waxa la leeyahay gantaalada ay Iran ka dagaalamaan way ka guureen saldhigyo gaar inay sameystaan Iran gantaaladu gawaari waaweyn bay ku wadaan xitaa hadii jawaasiis isku dayaan ay satellite-yada Mareykanka inay qabtaan ma heli karaan baa goobaha ay gantaalada Iran ka soo tuuraan saaka waxay gantaal ka soo tuurayaan meeshan
ويكجوريا مال كلا كسو توريان إلى جاري وساريا مال كلا كسو توريان وأرينا أذكتها يبالي الدجال كبرايكنج وكل الدجال أو إيران وحال عريامين أودا من الترجع إذا كإيران وهي هاي صاحبة قيمة لو حين توس وقلنا قضب كحاجة برنامج وحور باهين تقال لوجو باهين يا مقال عروين دليي والجزيرة يقوى كلام أي ما أنت باهين يان ومسجد كسدحات وجبر كيسان المسلمين تا مسجد الأقصى أو كوحها بربريا كوريا فلسطينيين تا دولك فلسطينيين تحوجا يهود حق جركا أي لا أركي أفر كن أي لا ذا وربحنت أفر كن أو كمدة أي مانت أو جمعة أيجو حيود بالدجا يان حفلته ذا إيو حلية دبالدجا يكجران يهود لكن المسلمين تجمعوا وحيود عيد أسبوع مساجد كي حل الجمعة واللي بقيت مسلمين تيكون كذا مسجد الأقصى أي قلنا اللي مركزي بربر يفوضك سمية معناه شاكذا المسجد الأقصى اللي بعتذر لجوهاي ويسوحوا ويسنا سامالين بمالين تكبنس كذا بس وزير هذا حق جركا يكوحا حق جركا أو كميديا بنجفار الركلة وحي بالله المساجد كوحان ربناه إن انتلا بربريو تنبل لو بدلو على مال يهود وحكوا عابدان إن كدغنا أي ليه وحد صعوته ولا إن لدوني مسجد كفريسة إمام الكيسة إن لجورج وزارة أوقاف الدلك جوردن إسرائيل يضع إمامش معناه ذو حاي تهاي وحي هذا دجالك أبدلين إن عاي مسجد الأقصى هذا بقل جرت مركب ورقزية شاكد إنه مريج تنا وحالله وقطر وايو مسجد الأقصى كلية فلسطينيين توميالو مسلمين تودن أي وياه مال بركيسن مال إله القرآن كوشاجي وماشي نبي قالوا العلمي عليه الصلاة والسلام وقبلدي يقول رئيسين مسلمين تا مرك قضية فلسطين كلية أطال ما أهنا يا لله وهول المسلمين تودن أطال مرك أرنتان وحيد على سعروين وحاصل لي بيع أفرتان كن مسجد كا صورتي ما أهن كليود بوليس كاود بل إلى داور بحنتا. More than 4,000 far-right Israelis have stormed the Al-Aqsa Mosque compound in occupied East Jerusalem to commemorate a Jewish holiday. They made the incursion under the protection of Israeli police and performed prayers to mark what they refer to as the destruction of the temple. Police barred Palestinian worshippers from praying inside the mosque. Israel's far-right national security minister Itamar Ben-Gvir and other Israeli members of the Knesset also took part in the incursion. وهي تاسي waxay ahayd warbixintii ku saabsanayd Masjid al-Aqsa oo ay kooxda Yuhuudda ahayd gudaha u galeen 4000 tiro sahlan ma wayahay saaxiibada qiimiga loo qodobka xiga barnaamijka ayaynu toos u galeynaa warbaahinta Iran ayaa soo bandhigtay muuqaal hadalhayn badan dhaliyo nimanka Iiraaniyiintu waa niman imtixaan macnaha waxay leeyihiin haddii Mareykanka uu dagaalka sii wado ilaa dagaalkan hadda waxa leeyahay kaliya ma ahaan doono dagaal ku socon doona dhinaca hawada Iiraaniyiintu waxay leeyihiin war anaga waxaan rabnaa Mareykan dhinaca dhulka inuu nagula dagaalo sida rag camal u dagaalamo wasiirka arrimaha dibadda Iiraan laga hayo Abbas Araqji oo horaan idin kula wadaagay waraysi hore laga qaaday wuxuu yiri sida rag inaan u dagaalnaa aan ilaahay afayeenka baarlamaanka dalka Iiraan Maxamed Bagar Ghalibaf si rag aan u dagaalanay dhulka ay yimaadaan waxaad casuumaysaa baa Mareykanka inay dalkiina soo galaan ma yabuu dhahay haddii la dagaalamayo toos baa loo dagaalamaa si kastaba ha noqotee hadda waxay Iiraaniyiin soo bandhigeen muuqaal inta gudaha Mareykanka aad loo wareejiyay macnaha waa dadkii reer miyiga Iiraaniyiinta maalmahan oo dhow waxay tababarayeen shacabka caadiga waxa la barayay sida qoryaha loo cabeeyo sida qoryaha loo qabsado sida qoryaha loo rido xaaladaha dagaalka waxaas oo dhan baa la barayay dadka Iiraaniyiinta macnaha Mareykan hadduu isku dayo dhinaca dhulka inuu soo galo in dadka reer Iiraan ay dagaalami karaan oo qof walba dagaalami karo aysan u suurtagelin ciidanka Mareykanka inay si caadi dhulka Mareykanka ugu dhex socdaan dhulka Iiraan ugu dhex socdaan ciidamada Mareykan maxaa la arkay marka hadda qaybta ugu yaabad waxay ahayd saxamana inta hor fadhiistaan bay qoriyii soo qaadanayaan waa ilaa waa reemi mug xabadii soo qaadanaya qoriyay gilaa xabadii soo qaadanaya qoriyay gilaa marka waxa kala garan lahayd waxa saxanka saaran madaanga mise waa rasaas mise waa raashiid
أنا نمانكا إيرانيين وحيلين ورانجا جبهدين ونقانا دجال هذا نلقى شان إيران وقت ديري وحي أصبرتي وهذا الله تلمامه يا إنه يهي دلك يقول ديرا عنقبتين يقول ديري مدفق لسان دلالك بريده أنا إيران دد كده وحي أصبرين شقلان وحي أصبرين حالة أدق إلا إشدالك إيران عنقبتين لساري بدعادي إيران عنقبتين لساري oo wax kasta lagu sameeyay ba hadda Mareykanku wuxuu ku soo qaaday weerar uu leeyahay kaabayaashooda dhaqaalaha burburinaya macnaha buundooyinkii la burburinaya waxa la burburinaya maartay korontadii waxa la burburinaya infrastructure-ka la buundada iyo meelaha iyo wadooyinka laga burburinaya markaas haddana waxa laga beegsanayaa shidaalkii biyihii ilaa waxa la rabaa dadkii iyo dawladii inay iska hor imaadaan ciriiri ay dareemaan laakiin dawladii waxay leedahay war dadka beeraleyda beeraha fasha war waxa isku daydaa inaad dalkiina difaacataan Iiraan waxay leedahay wax dagaalka ku jira kaliya ciidan ma aha xitaa shacabka caadiga waa in Iiraan ay difaacaan dugsiyada barashada quraanka kariimka ee macallin quraan online ayaa hab online kugu soo gaarsiinaya barashada quraanka kariimka cilmiga shariicada islaamka goob kasto dunida kaga joogto iyo waqti kasto haysato hadii ba shaqo ku jirto iyo hadii aad gurigaaga joogto mana laha jinsi u gaar dugsigan waxa wax ka dhiganaya caruur iyo ciroole rag iyo dumar kuwaas oo doonaya inay bartaan barashada quraanka kariimka aqoonta kala duwan ee dugsigan lagu qaadanayo waxa kamid ah barashada quraanka kariimka akhrinta iyo qorista igada luqadda carabiga iyo qaybaha shariicada islaamka sida tafsiirka aqeedada islaamka أحاديث النبي جاني ولبا فقيقا هذا بعديات والنا حريص بدن أو بدكيس الله ربنا كبر باريا برشة القرآن الكريم كا بحفافينا واحد كوي دينيسا عوانا دا إيه تلفون دا شاشة دا كاغا مغدا واي هاي صاحب هذا قيمة لو قضب قدام بيا برنامج كينا وحين كوسو أفجرنا شاكا حيسا بدن إيه سفر يابلي أو قلي وزير كأرمها دي بدا دالك إيران عباس عرقجي إيران دقال باسعودو وزير كأرمها دي بدا قدوميها بارلمانك madaxweynaha heshiis iskala galay shalay wuxuu shir la galay madaxweynaha dalka Iraq oo soo booqday Iran macna misuud shir u galay miitino iska wataa heshiisyo galaya Iraq Iran shalay waataan barnaamij ku sheegnay heshiis wadooyin taramiya la galaya wadanka caadi u shaqeynaya tarami kooxdiisana waxay leeyihiin Iran waa curyaabine gudihii Mareykanka sanatarada iyo siyaasiyiinta mucaaradka waxay leeyihiin war tarami kooxdiisa ma waalad bis Iran ay lagu ciyaarayso هذا شاكة كدرنا ما أنت الله إمادي وزير كأرمها دبادة دالك إيران عباس عرقجي وحصابا جاي أما وكنت جاي دالك كازاخستان أو وقيب جلي شركة شنغهاي كوبريشن ديارات جار ديارات دن حلو بحي مجا عجيبة أو اللي يراهدو مناب بقول لحد الإزداد محلقة وده حداد حصوصتان دجالكي كان ويركي كان كورية مرايكن كإيران يكون قادين waxay Mareykanka lagu eedeeyay inay ku dileen 168 caruur reer Iiraan oo primary school ama dugsi hoose dhiganaysa 168 iyo iskuulkii iyo tuuladii loogu magac diyaaradda mina 168 macnaha ma iloobayna waaye dilka aad u geysateen caruurtii reer Iiraan iyo dadweynaha Iiraan ma iloobayn macnaha nimankan diyaaradoodii fariinay gudbinayaan gantaalada markay tuuraan magacay ku dul qorayaan hanjabaadii ku dul qorayaan dagaalka dhexdiisa message waa nimankii marka ay duugayeen Ali Khamenei hogaamiyoodii Ali Khamenei quraayada quraana aayadaha siyaasadda ayaa loo bixiyay wadan kasta oo wufuud ka Sacuudiga markay imaadeen aayado quraan oo ayaga ka hadlay macnaha dhaqankooda tilmaamay Afghanistan wadan walba xuutiga markay imaadeen haddana waxayba soo bandhigeen diyaaradii Minaab 168 gabdhihiina laga dilay ardaydii reer Iiraan ee yaryaraa ee Mareykanka duqaynta uu ku dilay mi iloobeen niman safar ku jiro wasiirka arrimaha dibadda dalka caadi sida Mareykan wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka duu safrayo kan Iiraan uu safraya Iiraan niman ka baqaya in hawada ama cir ama dhibaato ay gaartaan si caadi arrimaha u kala socdaan dagaalkan wuxuu